الله ثم الصلاة الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد channelka aad daawanayso waa cilmi bili channel waa channel cusub aan kaga hadli doono waxyaabaha la xiriira cilmiga sayniska beeraha iyo Englishka iyo aqoon guud videogan waa videogii ugu horeeyay aan kaga soo gelinayno YouTube channelka waxaan kaga hadli doonaa mowduuc loo yaqaan Plant Kingdom oo ah boqortooyada dhirta ayaan kaga hadli doonaa sidoo kale waxaa jiro saa ogtahayba qof walbana uu ogyahay 5 boqortooyo oo universal accept ah scientists ay aqbaleen oo dhammaan adduunyada la wada ogyahay 5 boqortooyona waxa ay kala yihiin Plant Kingdom boqortooyada dhirta boqortooyada xayawaanka boqortooyada fungi iyo boqortooyada maneeraha wixii contacts ah waxa igala soo xiriiri karaa WhatsApp numberka Facebooka iyo Twitterka waxaan guda gelaynaa markaa darsigeeni cashirkeeni ayaan bilaabeynaa darsi waxaan kaga hadli doonaa ama contacts waxyaabaha uu ka kooban yahay waa general characteristics muwaasifaadka guud ee dhirta ay leedahay waxaan kaga hadli doonaa main functions qaybaha ugu waaweyn of plants dhirta plant kingdom ee boqortooyada dhirta ay leedahay characteristics muwaasifaadka oo mid waliba oo ah main functionkan qaybahan ugu waaweyn mid waliba sifada ay leedahay inaan ka hadalno waxaan ka hadli doonaa waxa loo yaqaan organism xubnaha vascular plants dhirta leh weelasha waxaa laga wadaa yacni dhir leh transportation system hab daabulaad oo ah yacni inay leedahay xubno u qaabilsan inay soo qaadaan nutrientiga ku milan solid ku ah gudaha hoose ee dhulka inay keenaan qaybaha kore ee dhirta iyo xubno u qaabilsan inay keenaan cunadii lagu sameeyay leaveska ee qaybta kore ay keenaan qaybta hoose xubno u qaabilsan ayaa jiro oo lagu kala magacaabo phylum oo hoos soo qaado oo nutrient dissolved soo qaado kordhigayso iyo xylem oo loo yaqaano xubintaas leaveska ka keento cunadii la sameeyay photosynthesis ayaan rabnaa inaan ka hadalno oo ah habka iyo nidaamka ama hanaanka ay u sameysato dhirta cunada marka general characteristics ayaa jirta muwaasifaadka guud ee leedahay dhirta waxaa kamid ah all plants dhammaan dhirtu are autotrophs waa kuwa isquudiyaal cunadooda ayagaa sameysto waxayna ka sameystaan raw materials carbon dioxide carbon dioxide biyo energy iyo saasna ay u sameystaan waxayna soo saaraan cunno oxygenkiina dib iyo waxayna soo saaraan glucose oo isticmaalaan cunno iyo oxygenkaas isaga ahna waxaa la sameyn doonaa in hawada atmosphere-ka lagu celiyo sidoo kale waxaa waaye nooleyaal eukaryotic organisms ah nooleyaal bu'doodu ay nidaamsan tahay oo true nucleus ah macnaheeduna tahay bu'dooda waxaa ku wareegsan membrane xub ayaa ku wareegsan sidaa ogta waxaa jiro marka laba qaybood loo qeybiyo cellka marka lagu beesgareynayo nuclear membrane xub inuu leeyahay waxaa loo qeybiyaa laba prokaryotic eukaryotic waa nooleyaasha bu'doodu ay ku wareegsan tahay membrane xub halka prokaryotic ay nooleyaasha aan ku wareegsaneyn bu'dooduna ay ku sabeynayso cytoplasma dhexdeeda sidoo kale waxaa waaye phototrophic waa kuwa cunadooda sameysto saan hadda soo sheegnayba all plants dhirta oo dhan waxaa ku jira chlorophyll cagaaryahan isaga wuxuu ku jiraa gudaha chloroplastiska isaga waa xubin ka mid ah plastids iyaduna waa xubin ka mid ah cell plantska u qaabilsan laba shaqo ay u qabataa dhirta plastids oo ah cunno in la sameeyo in dhirta u sameyso iyo cunno in la kaydiyo marka chloroplastids waa xubin ka tirsan chloroplast waxay ka tirsan tahay xubintaas plastids plastids gudaheedana waxaa ku jira chlorophyllkana waxa ay usoo dabtaa waxay soo qabataa ama trap ay kusoo sameysaa sunlight leedka cadceedda si cunada loo sameeyo all plants dhirta dhammaan waxay leeyihiin gudaha unugeed kaasoo ka kooban chemical substance waxyaaba chemical ah lagu magacaabo cellulose inta badan dhirtu multicellular waa kuwa unugyo badan leh laakiin kuwa yar ayaa waxay yihiin hal unuglayaal plants dhirtu reproduce way tarantaa waxayna u tarantaa sexually transgenic oo ah taran loo baahan yahay male and female inay ka qayb qaataan iyo taran loo yaqaano asexual transgenic laabe oo ah taran aan loo baahnayn male and female kaliya loo baahan yahay hal jinsi halkaas jinsina uu yahay enough inuu wada qabto shaqada dhammaan main functions qaybaha ugu weyn ee plant kingdom boqortooyada dhirta daa maqasho waa shantan ma ka baxsano kow iyagu there waxaa jira marka 5 kingdoms ayaa jiro
shantaas there waxaa jira marka main divisions there waxaa jira marka 5 main divisions 5 qaybood oo waaweyn oo plant kingdom boqortooyada dhirta divisionka ugu horeeyo shantan kama baxsano haddaa maqasho boqortooyada dhirtu intaan waaye shantan kama baxsano shantan waan dul istaagi doonaa mid weliba waa ka hadli doonaa divisionka qaybta ugu horeyso ah chlorophyta waxaa waaye green algae divisionka qaybta ku xigta waa radiophyta waa red algae waa divisionka waxa waa phorophyta waa brown algae divisionka waxa waa brophyta oo moist live and wood waa dhir waaye waa dhir ku taalo yani waa small land waa dhir gaagaaban oo dhulka ku taalo dhulka dushiisa aanan lahayn vascular plants waaye sidoo kale gerophyta tracheophyta ayaa jirto oo ah vascular plants dhirta leh weelal oo macnaha transportation system sameyso marka the first four division afarta qayb ugu horeyso waa non vascular plants waaye dhir aan cunadooda dhir aan maxaan ku dhahay aanan lahayn weelal oo transportation system aanan sameynin halka midda shanaad oo ah tracheophyta uu yahay vascular plant mid leh weelal transportation system sameeyo division 1 qaybta koowaad aan soo qaadano waa chlorophyta chlorophyta are the most diverse group of algae waa algae groupkaas oo kala duwanaansho baahsan muujiyo oo aad u kala duwan qaar ay kamid waa unicellular hal kuwa kale ay yihiin hal unug leh kuwa kalena ay yihiin multicellular unug la badnayaal unugyo badan leh ujeedka ugu weyn oo midabkan greenka u yeelaya ayaa waxa uu yahay waxay leeyihiin pigment midabeeye kaasoo lagu magacaabo chlorophyll cagaaryahaas some of them qaar ay kamid waxay u tarmaan taranka loo yaqaan asomogos oo ah tarankaas isaga waxa ka qayb qaadanayo laba identical gamete laba gamete oo isu eg ayaa ka qayb qaato halka others kuwa kale yihiin ogomogos oo ah tarankaas isaga waxa ka qayb qaadanaya laba different gametes oo ah male and female ay ka qayb qaadanayo si kale waxaa dhihi kartaa isomogos waa sexual reproduction waaye taran jinsile asexual waaye ogomogosna waxaa waaye sexual waaye male and female loo baahan yahay osomogosna waxaa waaye asexual waaye looma baahno waxaa inaafa hal bis loo baahan yahay hal jinsi ayaa intaa wada qaban karo this one saa ujeeda waa chlorophyta division kale waxaa waaye radiophyta waxaa ku jiro reddish pigment midabkaas guduud xigeenka ah waxaa lagu magacaabaa phycoerythrin most of this division qaybtan intooda badan waa marine badda ay ku nool yihiin mostly intooda badan life ay ku nool yihiin tropical water meelaha biyaha leh tropical water meelaha biyaha leh also sidoo kale waxay ku badan yihiin meelaha along road coasts meelaha xeebaha dhagaxyada jimbiyada ah long roads dhagaxyada jimbiyada qeybaha hoose dhinacyadooda cold water meelaha biyaha qabow taran ahaan iyaga waxay u tarmaan sexually oo ah waxaa loo baahan yahay male and female tarankaas isaga waxaa ka qayb qaata laba gamete kala duwan oo ah sperm oo mini ah iyo minida balantiga ula jeedaaye iyo egg oo ugxan ah waxaa loo yaqaan ogomogos ama sexual this ujeeda waa radiophyta midabkan guduudka waxa u yaala phycoerythrin midabkii wuxuu u yeelay midabkan reddishka ah waana kasoo hadalnay divisionka saddexaad waxaa waaye phytophyta waxaa ku jiro major pigment midabeeyaha ugu waaweyn which kaasoo ayaga ka dhigayo midabka loo yaqaan brown waxaa lagu magacaabaa phycothinin ayaa lagu magacaabaa inta badan waa marine badda ay ku nool yihiin ay ka baxaan intooda badan waxay ku badan yihiin coastal areas meelaha xeebaha si gaar ah cold water meelaha biyaha qabow leh taran ahaan iyagu waxaa waaye sexually taran jinsile ogomogos ayaa loo yaqaana oo macnaha waxa ka qayb qaato labo different gametes ay ka qayb qaato ah gamete loo yaqaan sperm gamete loo yaqaan egg ugxan ayaa ka qayb qaato this one saa ujeeda waa brown algae ama bryophyta ama phytophyta divisionka afraad waxaa waaye divisionka loo yaqaan bryophyta waa small land plants waa dhir gaagaaban dhulka dushiisa ku taalo do not contain aan lahayn vascular tissue nudo transportation system sameyso aan lahayn waxaana kamid ah moiseska live wordka bryophyta inta badan waxay leeyihiin few specialism waxyaaba u gaar ayay leeyihiin specialization kuwaasoo u ogolaanaya ayaga inay ku noolaadaan dhulka dushiisa waxaa kamid ah waxay leeyihiin protective layer outer layer gidaar sare banaanka ah oo wax difaaco kana difaaco unugyadooda waxaa loo yaqaan epidermis dib sare waxay leeyihiin sidoo kale waxyaabo dhegdhegaayo
oo ku daboolan jirkooda oo loo yaqaano catin which prevent kaasoo ka hortago ama difaaco talos waa jirka plantigaas waaye waxayna ka difaacaan drying inay qalalaan waxay leeyihiin root like structure muuqaal u samaysan xididka oo kale lagu magacaabo rhizolis shaqadiisana waxa waaye in uu ku celiyo ama ku dhego dhulka dushiisa macnaha in ground qabsado macnaha uusan fuqin division kale ugu dambeeya waxaa waaye tracheophyta division tracheophyta belong to ectrisin vascular plants dhirta leh weelasha oo ah waxay sameeyaan transportation system macnaheeduna waxaa waaye waxay leeyihiin well developed structure qaab dhismeed aad u horumarsan kuwaasoo obtain ay ka helaan biyaha iyo dissolves nutrientigii ku milnaa gudaha hoose deep ground dhulka hoostiisa gunta hoose this division isaga waxaa loo qeybiyaa laba ayaa loo qeybiyaa oo kala ah two subdivisions laba qeyb hoosaadi ayaa loo qeybiyaa laba qeyb oo hoose ayaa loo qeybiyaa waxaa lagu kala magacaabaa Petrophyta ama sidoo kale waxaa loo qeybiyaa qeybta labaad oo ah Spermatophyta waxaan ku hormarinaynaa subdivision qeyb hoosaadka loo yaqaano Petrophyta waa vascular seedless plants waaye dhirta aanan lahayn seed aanan lahayn laakiin leh vascular system ay leeyihiin laakiin seed ma soo saaraan they iyagu well developed aad ay u horumarsan yihiin vascular tissue ay leeyihiin they have waxay leeyihiin sidoo kale well developed vascular tissue ay leeyihiin they have sidoo kale waxay leeyihiin underground steam dhulka hoostiisa ah ay leeyihiin lagu magacaabo rhizomes ayaa lagu magacaabaa leaves caleema ay leeyihiin marka most of intooda badan waxaa laga helaa meelaha damp places ah meelaha qoyaanka ah because maxaa yeelay they need waxay u baahan yihiin water si ay u tarmaan subdivision kale oo ah Spermatophyta waxaa waaye vascular seedless seed plants dhirta leh weelal lehna seed soo saarto the term ereyga Spermatophyta waxaa laga keenay laba erey oo Greek ah oo lagu kala magacaabo seeds oo lagu magacaabo spermia macnaheedu tahay seeds iniinyo phytia oo macnaheedu tahay plants dhir reproduce ay soo saaraan seeds iniinyo ay soo saaraan subdivisionkan isaga waa lasii kala saaraa waxaa loo qeybiyaa labo oo kala gymnosperms dhir naked seed soo saarto oo iniinyo qaawan soo saarto iyo dhir soo saarto oo loo yaqaano angiosperms oo soo saarto covered seeds iniinyo dihaaran oo dul covered la dihaaran classkan oo qaybtan oo gymnospermka ah oo soo saarta naked seeds iniinyo qaawan term gyno means macnaheedu wuxuu yahay naag qaawan spermia macnaheeduna tahay seed iniin reproduce ay soo saaraan naked seeds iniinyo qaawan ay soo saaraan classka loo yaqaano angiosperms waa angio macnaheeduna tahay covered dihaaran and sperm macnaheeduna tahay seeds iniinyo most of them intooda badan waa flowering way ubaxayaan ubax ay soo saaraan all seeds dhammaan seedsku developed way kasoo horumaraan ama ay kasoo baxaan within fruit gudihiisa tusaale cambaho kale cambaha wuxuu leeyahay saddex qaybood oo ah maqaarka kore maqaarka waxaa ku xigay fruitkii la cunaayay gudahana waxaa kusii jira ugu dambeeya oo hoos ah seedka ayaa sameeya ay kasoo horumaraan macnaha developed within fruitka waxaa waaye meesha la cuno waxaa ka koreeya oo diheer ayaa ka koreeya qolofkaas isaga ah waa la iska tuuraa fruitka waxaa kasii hooseeya seedkaas ayayna kasoo baxaan inside the angiosperm there is waxaa jira marka tiny embryonic leaves caleemo oo urjiif ah lagu magacaabo cotyledons ayaa lagu magacaabo haddii marka angiospermka uu leeyahay hal cotyledon waxaa lagu magacaabo monocotyledons hal qalbaxle waxaan tusaale u ah haddii miiska ayaa u ah galleyda sarga masagada wheatka qamadiga riceka bariiska palm tree plants dhirta oo timirta while marka some angiospermsku have ay leeyihiin two cotyledons labo qalbaxlayaal dhirta le waxaa lagu magacaabaa dicotyledons ama dicots waxaa tusaale u ah penis digirtan caadiga ah penis salbugtada groundnut lowska sunflower iyo gabbaldayaha organs xubnaha marka vascular plants dhirta leh weelasha leh transportation system sameyso phylum leh phylumku waxay sameysaa waxay kasoo qaadaa nutrient dissolviga dhulka hoostiisa ah geedkan ugu baahan yahay ayay soo qaadaa waxay keentaa qeybaha kacda parts of plant halka xylem ay soo qaado cunadii lagu sameeyey leaveska ay keento qeybaha kale ee geedka marka vascular plants waxay leeyihiin well developed structures
muuqaalo aad u horumarsan ama organs xubno kuwaas oo qabta special function shaqooyin gaar ah waxaana ka mid ah root oo xididadana geedka wuxuu sameeyaa dhulku ku celiyaa wuxuu qabtaa biyaha uu soo qabtaa marmar wuxuu soo qabtaa nutrientigii steamka ka mid ah xubnahaas steamkan oo ah geedka inuu skeletal system uu sameeyaa qalfoof inuu geedkan taagnaado leaveska sidoo kale wuxuu qabtaa cunnada lagu sameeyaa flowersku waa qaybta taranta ee dhirta reproduction system reproduction part of the plants waa flower waaye waxaan ka hadlaynaa sidoo kale waxaa loo yaqaana photosynthesis oo ah habka iyo hanaanka dhirta ay u samaysato cunnada photosynthesis macnaheedu waxa waaye manufacture in la farsameeyo organic food cunno qayriin ah ee laga dhigo material mainly inta badan sugar ayaa lasoo saaraa waxaa laga soo saaraa carbon dioxide biyo iyo sunlight oo isu tegay waxaa laga soo saaraa sugar iyo oxygen sugarka isaga ah glucose waaye glucose waxaa ka faa'iidaysanaysa dhirta waxayna isticmaalaysaa koriimo inay soo saarto taran sameyso dalagyo badan soo saarto oxygenkina hawada atmosphere lagu celiyo oxygenka isaga waxaa kasii faa'iidaysanayo waxaa loo yaqaano animalska oo anaga ka mid ah humanka photosynthesis equation marka isla egtaan sidan ayay u samaysan tahay carbon dioxide biyo iyo energy waxaa la soo saaraa marka glucose marka waa kana photosynthesis waa carbon dioxide biyo iyo waxaa soo saaray marka waxaa la soo saaray glucose-kan dhirta ayaa isticmaalaysa waxayna u isticmaalaysaa koriimo inay inaynin soo saarto shaqooyinkaas kaloo caadiga ah ee qabato iyada u gaarka ah iyo oxygenka isaga marka waa la saarayaa waxaa lagu celinaya atmosphere-kii waxaa ka faa'iidaysanayo animalskii kudishiisa ah sida annaga oo kale ayaa ka faa'iidaysanayo cashirkina maanta halka ayuu ku egyahay si aan cashiro badan usoo duubno please subscribe channelka noo saar cilmi bili channel waxaan ka hadli doonaa cilmi badan oo sayniska la xiriiro cilmiga beeraha sidoo kale english waxyaabo badan please subscribe noo saar aad aan kaaga mahadcelinaa daawashada videogan intaan video kale